السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقدقاق نبض الصوماليات wuxuu maanta ay taariikhdu tahay afartii bishii labaad 2022 baaq nabadeed uu u dirayaa meelo kala duwan colaado ka jira colaadahaas waxaa kamid ah saakay beledweyne weerarkii ka dhacay sidoo kale colaad beeleedyada ka kala jira xanan buure iyo sidoo kale shabeellada dhexe oo ayadana ay colaadi ka jirto warsheeq oo guriyo tira badan lagu kala gubay dhamaan colaadahaas waxaan aaminsanahay in ay ka habooneed in lagu xalliyo qaab nabdoon bini aadanku mar walba waa khilaaf joog oo khilaaf wax laga fogaa kara ma ahan laakiin khilaafka sida caadiga ah dabiiciga bini aadanku waxa dabeecad u ah inuu ku xalliyo qaab nabdoon laga wada hadlo la wada fariisto lagu heshiiyo waxa la isku haysto wixii laga yeeli lahaa ma jirto colaad ka bilaabata gacan ka hadal wax walba waxay leeyihiin bilow colaadu waxay leedahay bilow waxay leedahay sasaan waxay leedahay stages kala duwan oo ay marto stages kala duwan mid walba xal gooniyuhu leeyahay qasaarihiisuna wuu yar yahay ilaa laga gaaro midka u dambeeya ee ah gacan ka hadalka markii uu bilaawmo waxa qasaba in burbur hantiyeed uu imaanayo naf lagu weynayo aawac uu dhacayo halkuna uu daba dheeraad doono sababtoo ah qasaarihii dhacay ayaa waxay u baahan yihiin in xal laga gaaro 30 sano khilaaf ku soo jirnay 30 sano kadib ma rabno in marka gacan ka hadalku bilaawmo in laga daba tago laakiin waxaan rabnaa in sida bini aadanku ku shaqeeyo la sameeyo preventive strategy oo ah in laga hortago waxaan marka uu horeeyo ismaandhaafku yimaado la kala aragti duwanaado waxa jira fursad lagu wada hadli karo marka ku xiga ee la arko in dadku group dadku ay kala noqonayaan oo wixii la muujinayo dhaqan ahaan loo soo muujinayo colaadii waxa furan fursad dadkii la isku soo celiyo oo gruubyadii inta laga saaro la isku soo celiyo runtii dhaqdhaqaaqu wuxuu u mahad celinayaa shirkii maanta ka dhacay Dhuusamareeb ay soo abaabuleen madaxda dhaqanka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanadaas runtiina waxaan rajaynaynaa in la sii dardar geliyo ilaa uu miro dhalo bulshada colaadu dhex martayna gobol walaaltinimo isugu keena waxaan rabnaa marka in mas'uuliyad wadareed la wada qaato oo aan la dhihin colaadu deegaanka ay ka jirto ay ku egtahay in aan la dhihin waxaan rabnaa mas'uuliyad wadareed in la qaato mas'uuliyadaas wadareedna waxaan rabnaa in haday culimo tahay hadii ay aqoon-yahan tahay hadii dhalinyaro ay tahay hadii siyaasiyiinta oo markoodii hore ayagu u dhaartay in ay u go'eenba ka shaqeynta arrimaha bulshada u go'ayba inay mas'uuliyadooda qaataan waxaan rabnaa inaan nabadda lagu halayn hal qof oo loo bixiyay nabadoon dadka Soomaaliyeed ee tirada badan hal qof in inta nabadda loo asteeyo inta kale in colaadda ka shaqeysa iyo in ka aamusan inay noqdaan ma soo celi karto nabadii Soomaaliyeed waxaan rabnaa marka nabadda inaan u wada istaagno oo dhalinyaradu ay ogaadaan waxaad miisaan ku leedahay oo lagu miisaamaya hadba inta isbedel aad samaysid adigoo da'ya ma ka hortagi kartaa colaadaha dadkaada ama deegaanadaada ka dhacaya waxaan rabnaa culimadu iyo aqoon-yahanka kalaba in aqoontooda lagu cabiro hadba isbedel inta ay ku dhali karaan siyaasiga u dhaartay bulshada waxaan rabnaa in mas'uuliyadiisa hogaamiyanimadiisa in lagu cabiraan rabnaa hadba bulshadiisii sida ay u bad qabto sida ay isu raacsan tahay sida ay u wada jirto in hogaankiisa lagu cabiraan rabnaa oo nidaamkiisa hogaamineed halkaas laga dhaxaqriyaan rabnaa ganacsadaha waxaan rabnaa in uu nabadda maalgeliyo waxa jira marka colaadi ay jirto qasab waxa hanti badan ayaa baxaysa hanti waxa jirta ku bixi doonta caafimaadka hanti waxa jirta ku bixi doonta colaadda waxa soo burbura waxa ka dhib yar in wax yar loo qoondeeyo nabad waxaan ku soo koobaynaa dadka Soomaaliyeedna aan rabnaa inaan xasuusino wax kelimad nooga filan aysan ku mid nooga dhiman oo mahadsantihiin منهي